gudoomiyaha degmada Afbarwaaqo ee bariga gobolka Mudug Cabdullaahi Jaamac Dhoore oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Gaalkacyo ayaa ka hadlay dagaal saaka ka dhacay deegaano hoos yimaada degmada Afbarwaaqo kaas oo dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac isla markaana u dhaxeeyay maleeshiyaad ka soo kala jeeday deegaanada Tawfiiq iyo deegaano hoos yimaada degmada Afbarwaaqo. Cabdullaahi Jaamac Dhoore ayaa sheegay inay ka xun yihiin dhibaatada uu sababay dagaalkaasi xilli uu xusay inay ku guda jireen xalinta shaqaqooyin deegaanadaasi hore uga dhacay oo looga ballansanaa in nabad lagu dhameeyo wuxuuna nasiib darro ku tilmaamay in maamulka deegaanka Tawfiiq ay uga baxeen ballankii nabadda uga yaalay xalay ilaa saakana dagaal lagu soo qaaday deegaano hoostaga degmada Afbarwaaqo halkaas oo lagu dhibaateeyay dad aan waxba galabsan. taariikhdu ay ahayd 5 bisha December oo bisha 12aad ayaa niman burcada oo ciidan ah oo ka yimid Tawfiiq ay waxay galeen laasmidgaan ama cilmidgaan meesha la yiraahdo markay soo dhawaaqeen oo telefoon soo direen oo ay yiraahdeen waana la haystaa xalay waana la qabsaday waana la camaajiray laba baabuur baa soo baxday meel dhax ayagoo soo maraya jidka loo galay khasaare dhimasho iyo dhaawac badan leh baana ka dhacay waxaana geystay ciidanka Tawfiiq meesha la yiraahdo oo Afbarwaaqo 12 kilomitir u jirta cid degan ayaana geysatay arintaas meeshaasna dhimasho badan iyo dhaawac badan baa ka dhacay baabuurtaas mid gadoomay iyo mid kale oo dagaal ah intaas ayaa ka dhacday meeshaas xaaladda meeshan hadda dhaawiciina waa la soo wadaa meedkiina waa la qaaday oo waa laga qaaday meeshii arintaasuna arin dhibaato ah oo ay geysteen nimankaas reer Tawfiiq weeyaan insha Allah taala bal wixii laga qaban karana waa laga qabanaya insha Allah taala. Cabdullaahi Jaamac Dhoore gudoomiyaha degmada Afbarwaaqo ayaa ku baaqay in nabad lagu soo dabaalo deegaanka isla markaana la joojiyo xiisadaha ay hurinayaan dad uu sheegay inay nabad u dhibayso. baaqnimada waxaan dirayaa waxaan leeyahay meeshaas colaad wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waxayna u baahan tahay in nabad laga raadiyo dadkaas walaalaha oo reemiga oo muddo badan aad meesha ugu dagaalsan ayay u baahan tahay in nabad laga helo meesha nabad laga helo in nabad la helo waxaan wadnay ayaantaan oo dhan waxaan wadnay inaan sharciyo yar yar soo bino oo wili yar oo xataa sharciga aan ku qaban lahayn oo ku xirxiri lahayn aan soo bino reer nimanka la yiraahdo reer Tawfiiqna intay nala soo hadleen ayay yiraahdeen nabad baan doonaynaa nabadina waa ka aqbalnay annaguna ilaa 5-6 maalmood waxaan u fadhinay inaan nabadii aan horumarino oo socodsiino ballanna waan lahayn ballantiina way ka baxeen oo arrimahaas dhibaatada ah oo hadda aad maqlaysiin ayay geysteen wax gooniya oo ayaka loo geystayna ma ay jirto. maamulka gobolka Mudug iyo odayaasha dhaqanka ayaa wada dadaalo xal loogu raadinayo xiisadaha colaadeed ee ka soo cusboonaaday deegaano hoostaga degmada Afbarwaaqo ee gobolka Mudug waxaana socda kulamo looga tashanayo sidii nabad loogu soo dabaali lahaa deegaanadaasi. Saadaq Siciid Nuur Galmudug TV Gaalkacyo.